maanta waxaan leeyahay dadnimoy oy gobonimoy oy dadka ku faanaya qabiilka kuwa ku faanaya hayb kuwa sheeganaya inay yihiin laandheerayaal waynu gumuuni maanta gu noqoteen walaalkiin baa gubteen qof islaamo idin la mid ah ayaa ka faanaysaan oo waliba ka faanteen waa fahmi jirteen hadde aad dab qabadsiiseen maantaanu garooshiyeed ku haysan weli war xaggee qabtay madaxdii geeska afrika nin madaxweynaha oo af soomaali ku hadlaya oo u tacsiyey ma maqal xitaa xaggay jiraan waayo waxaa kale wax miclaaki jiray ma qoyska hadda inagu aynu ka hadlayno saa uga hadlayno madaxweynaha uu hoostiisa ku dhintay waa farmaajo erey ma odhan walaa tibis u tagay iska daaya ka ku xiga ee ra'iisul wasaaraha ee weliba haybta dagaalamaysay ma hadlin dad inagoo kalaa qaylinaya mee madaxdii mee gobonimadii mee dadnimadii mee qarnimada sheeganayno maanta waxay ahayd in loo wada kaco ma aha in qoyskan bariis la siiyo ama dhar la siiyo in loo kaco waxaan wax laga qabto adeer maalba way dhacdaa markaad weydiinaysaad leedahay arrimo noocan ma dhacan aniga maxamed ahaan haybahaasaan ka mid ah waan ku quraacdaa waan ku qadeeyaa waan ku seexdaa waxaa la gulqaniyada jaahilka maalba 10 jaahil bay igu hor yimaadaa oo igoosta qayb ka mida jirkayga waxay dhegteydaa soo gaarsiiyaan taay ka hadleen mayta kalama maqashiyo laakiin waxaan la kulmaa haddana markaan 100 noocaasa soo jiiro qof bini aadmiyaan la kulmaa oo aan ku socdo dhowr saacadood oo dambe oo fahmo qiimaha iyo wada dhalashada iyo waxaan sunna markaan soo xusuusto taariikhda noloshayda aniga maalintii horreysay iskuul gelayay mar baan damcayna cararo uga dhaxaysa rag waaweyn oo ila daa oo caqliga ku daafadda iyo ku jiray isla weynaanta oo macallimiin sheeganaya imtixaanka iga qaadiyo nin ka mid wuxuu igu yidhi maxaa ku helay halkan soo inay hebel ma jid ma birtiinii iska tumatid toddoba jir baan bal ka waran ummadda intii meesha joogtay oo aamusiin lahaydna qosol bay qawladii wada waaxeen ilmo intaa leeg maxaa ku dhici kara waan xusuusnahay